nabadgelyada degmada Boocada aad bay u fiican tahay inaan dhawtaan waxa ku jira kormeer oo aan wahawjarayo abaaraha dhacay iyo roobab meesha ka deen degmada waxa weeye aad iyo aad loogu fiican yahay iyo shaqaaqada maanta ka dhacday sida aad la socotaan dawladda Soomaaliyeedka ee la yiraahdo Soomaaliland baa la baxday waxay xustaa maanta 18 ay yiraahdaan oo aan u naqaano gobolada Soomaaliya sanaag looga yaqaano maalinta qashinka sida darteed dadka reer Boocada saaka iyagoo gudanaya shaqadooda waajibka ahayd oo gooyay qashinkii maalinta qashinka ka shaqeynaya ayaa waxa jira saad la socoto gobolada Sool waxa abuuray markii la xanuun la qabsaday caloosho shaqaystayaal ka tirsan baab jooga meel walba oo maaragtay ilama yara oo meelaha jooga oo ay wax ku siiyaan qoladaas ayaa markaa dadkii soo weerarto calaamad meesha ku soo xeeratay oo maaragtay kalimaadtaas aan xusaynaa dadkii magaalada joogana waa la dagaalameen waana dad deegaanka ay ma dad meel ka yimid Soomaaliland kale oo soo duushay arrintaas waxa weeye markiiba adu waa la xakameeyay iyagina waa tageen magaaladuna waa caadi hadda way degantahay wax dhibaatana ma jiraan wax Soomaaliland oo Boocada timina ma jirto deegaankan hadda ku suganaayo kala hadlayaaba magarad